الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan mahad iskale Allah subxaanahu wa tacaala halkaan isugu keenay annagoo rabno inaan bal dadka muslimiinta ah Soomaaliyeed aan fikirka aan la wadaagno. runtii mahadaas kadib waxaan u mahad celinayaa gudoomiyaha Bibi Banaadir iyo walaalaha maamulkaas la wada iyo khiyaarta fadhigan ka soo qaybgashay. buuggan waxaan filayaa title-kiisii inuu xambaarsan yahay hadal weyn ama baahi Soomaali qabtay oo ah ummadan hoggaankeeda in loo dhiibo dad tayo leh oo wax tari kara. meesha cakiskeeda hadda loo raadinaya mid baabi'inaya. markaan buuggan waxaan leeyahay waqtigu soo baxay baahidiisii way taaganta oo waqtigu wax la xulayay waqtigu wax la dooranayay. markaan waxaan leenahay xujaha ku ahaato buuggan si aad in loo faafiyo runtii aad u fiican yahay. dhowr meel baan ku arkay inkastoo gudoomiyaha dhowr jeer igu wacay buugga intaan la soo saaray aan wax arko, laakiin waxaan filayaa qodobada uu ku qoran yahay iyo waxaan kaloo ku arkay rag badan oo odayaal oo khiyaar oo aan aqaanay sawiradooda aan ku arkay runtii oo aan hadda aan filayn inay nool yihiin ma filayn. markaan taariikh badan baa laga yaabaa in laga dhaxelo. gudoomiyaha waa ugu mahad celinaynaa. waxaa kaloo meeshaan ka muuqatay shaqo badan oo la qabtay haddii la ururiyo waxaan la yiraahdo in wax la diiwaan geliyo ama meel lagu keediyo faa'iidada leedahay bay muujinaysaa. buuggan taa wixii la qabtay oo dhan ama ururkan intuu jiray buu markhaati u yahay in shirarkii ay qabteen dadkii ka soo qayb galay ama aad waddanka gudihiisa ama dibaddiisa ama waddankan aan ku noolnahay waxyaabihii la qabtay markhaati bay tahay oo maaragtay wax been abuur ah maaha. marka waa runtii aad ugu mahad celinayaa. waxaan rabaa xasan inuu yahay runtii xafiiskan hadda aan joogno ama meeshaan Bibi Banaadir waxay matalaysaa qowmiyadan oo Soomaaliya dib lagu soo gaarsiiyey dadkii xadaarada lahaa ahaa ee laga yaqaanay runtii liskuna dayay in la zuuliyo. oo runtii waxaa markhaati ka ah dagaalka xooggiisa waxaa ku dhacay Shangaani iyo Banaadir iyo maxaa la yiraahdaa saddexdii xaafadood oo asalka Banaadir ah. dagaalkana kuma jirin dad dagaalamay maahan. waxaa ku tusaysaa markaan in target jiray in meeshaan la zuuliyo la rabay ayaa ku tusaysaa. maxaa yeelay jidka Maka al-Mukarrama wixii ka dambeeyay jidka Sodonka wixii ka dambeeyay daarihii dhisnaa wali waa dhisan yihiin, laakiin saddexdan afartan degmo maxaa baabi'iyay maxaa isugu keenay dagaalka. markii hore waxaa la leeyahay meeshaan la yaqaan ma ahayn. marka hadda waxaa noo soo baxday in meeshaan la rabay in la maaragtay nabad guuriyo dadkan la cirib tiro, laakiin Ilaahay baa dad cirib tiri kara. dadku waa jirayaan waana harayaan. marka waxaa la rabaa nabad Soomaaliyeed waxay ku xiran tahay dadkii dibka la gaarsiiyey waxay ahayd in la raali geliyo. ma baahan waxaa la yiraahdaa waxaa tiin boqolkiiba boqol dadkii ahaan jiray waxaa la yiraahdaa konton baa tiin. ninkii dibka la gaarsiiyey baadina waxaa la leeyahay boqolkii waxaa tahay konton. dadku lama simin, waa lagu dilay, waa lagu dhacay, walaasha hortaa lagu kufsaday. ninkii ku yeelay isagoona ku raali gelin baa haddana waxaa la leeyahay waxaa tahay haaf baa tahay. waa xanuun kale. markaan waxaa moodaa dib u heshiisiin meeshii laga rabay inay dhacday macnaha dib isu dhibid. dib u heshiisiin maba dhicin. waxaan kaloo rabaa fursadda inaan uga faa'iidaysado qowmiyadda Banaadir. qowmiyadda Banaadir waxaan filayaa runtii waxaan aad u jeclay hadal uu yiray Beeley. wuxuu yiri meel kastoo harqaan yaalo buu nin Banaadir waa joogaa waa tag. Soomaaliya markaa meel aan harqaan oo lama jirto. that means nin Banaadir meel kasta waa joogaa. marka waxaan leeyahay waqti xun baa lagu jiraa, waxbaa la kala qaybsanayaa. waxaan rabaa inaan halkan ugu diro fariin odayaasha dhaqanka Banaadir. waxaan rabaa inaan u diro fariintan uga faa'iideysto wax garadka reer Banaadir. culimadooda
ganacsatadooda dhalinyaradooda waxaan rabaa wixii la siiyo oo xildhibaanada banaadir qabiil ma in laisla gartaa maamulka banaadir dadka la siiya waxa weeyaan waa deegaan ummad xadaarad leh isla degan walaalo ah ayaa waxaas isla leh waxaa la rabaa markaan si cadaalad ah walaalahaasi in loogu qaybiyo inta loo waco lasoo fadhiisiyo la yidhaahdo waxaan banaadir baa reer banaadir baa isla leh yaa noo mudan yaa mudan yaa xikmadan iska leh yaa noo qalma in la yidhaahdo ayaa rabnaa banaadir waxaa la rabaa waxay xooggeedu degan tahay gobolkii banaadir iyo shabeellada hoose xooggeedii ugu badan deegaanadeedii ugu xoog badan waxaa la rabaa markaa in tixgelin la siiyo ummaddaasi la ilaaliyo waxaan kaloo rabaa inaan fariin labaad u diro